gayga qayto haddaan madantiyo shidaalka haddaan hodankiisa gaadho nimcada la helay qaybsho haddaan gayga qayto haddaan madantiyo shidaalka haddaan hodankiisa gaadho nimcada la helay shirkani oo muddo 3 maalmood ka socday hoteelka casriga ah ee Royal Palace Hotel oo ku yaala duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa ayay mas'uuliyiintani ku lafagureen arrimo badan oo la xiriira sidii loo horumarin lahaa wadooyinka Somaliland gabagabada shirkaasina wasiirka ayaa ku soo xidhay isla hoteelkaasi Royal Palace Hotel oo ah hotel casri ah oo ku yaala magaalada Hargeysa halkan waxaynu maanta ku soo gabagabeynaa runtii shir muhiim ah oo ay lahayd wasaaradda iyo hay'adda wadooyinka shirkaas oo ku saabsanaa sidii loo dejin lahaa hab maamulka ama habka shaqo ee 2020 isla markaana looga faa'iideysan lahaa waxyaabihii sanadihii hore loo arkayay inay magaranaysaa u baahnayeen in la hagaajiyo ama in la sii qurxiyo shirkaas runtii waxa shir aad u faa'iido badan shir buu ahaa runtii qof kasta uu xor u yahay inuu soo bandhigo wixii uu ama wixii uu isagu dareensan yahay iyo wixii uu arkay intaba ruuxantii waxaan shakhsiyan waxa dareemay inuu yahay shir aad moodo inuu ka horumarsan yahay shirarka badan lagu yaqaan adduunka saddexaad oo ah wax la flat organization ama organization ama hab dhismeed siman oo la wada hadli karo ilaa wasiirka ilaa maareeyaasha ilaa iyo qofka ugu hooseeya xagga shaqada marka shirkaas faa'iidooyinkiisa waxa kamid ahayd in la soo bandhigo in la eego waxyaabihii tagay lana soo bandhigo waxyaabaha lagu talagalay in la qabto 2020 iyadoo laga duulay waay aragnimadii 2019 shirka faa'iidooyin aad u badan baa ka soo baxay in mashruuca ugu weyn ee qaranku leeyahay wadada ceergaabo aad loo qaada dhigo in la isla eego waxyaabaha wanaagsan ay qabteen iyo waxyaabaha u baahan in la hagaajiyo intaba mashaariicda waaweyn kale wadanka socota sida maxaa la yiraahdaa wadooyinka kale wadanka socda sida wadada isku xidha Hargeysa ilaa Kalabayd Sheekh ilaa maxaa la yiraahdaa Sheekh ilaa Berbera Sheekh ilaa Burco iyo wadooyinka kale bariga ka xiga intaba marka shirkaas shir aad u faa'iido badan buu ahaa shirkaana runtii shir anigu shakhsiyan iyo dhamaanteeba aanu ka qabno rajo wanaagsan inay wada shaqayn wanaagsan iyo qorshe wanaagsan iyo horumar wanaagsan oo dalka ka soo baxo waxaan markaa ku soo dhaweynaya mikrofoonka qabto maareeyaha hay'adda wadooyinka Axmed oo isaguna ma hadhow ku wareejin doono wasiirka sida uu sheegay Jamaal waxa halkan muddo 3 casho ah shir uga socday madaxda iyo waxa kala duwan ee hay'adda wadooyinka iyo wasiirka gaadiidka iyo wadooyinka qorshaha bandhigaas loogu diyaar garoobeyna waa qorshaha 2020 si loo qeexo loona dabagalo maamul daadejina loogu sameeyo qorshihii sanadka mas'uuliyadeeda la qaybsado cid walba shaqada halkay ka leedahay ay ka qabsato inta baa ujeedada shirku ahayd sidaan la socono hawsha aan haynaa iyo shaqada aan qaranka u haynaa waa hawl balaaran halbowlayaasha iyo wadooyinkii dalka oo dhan baan maamuleyna gacanta ku haynaa waxaan la doonayaa inaynan habeen iyo maalin soo jeedahan aan seexan maadaama infrastructure lamaga dalka aan gacanta ku hayno sidaa daraadeed waxa shirkaasi guulo badan ku gaaray runtii oo aan ku farxi karaa in ay ka soo qayb galeen waxa u tababaran ama aqoon buuxda u leh qaabka ay u fulinayaan shaqooyinka kala duwan ay hayaan ama ay u cayiman yihiin haddii hay'ad wax inta ka dambeeyo wax noqonaysa marka shaqadeena inay toos loo bilaabo dabagalkeedii iyo mataqaanaa monitoringkeedii kaliya ka haray laakiin qaab dhismeedkeedii oo dhami qorshihii sanadka 2020 uu sidaad ku qeexan yahay ilaahay baa mahadda iskale sida kale waxaan uga faa'iideysanayaa oo aan leeyahay hambalyo sanad wanaagsan dhammaan ummadda reer Somaliland iyo ummadda Soomaaliyeedba muslimiinta caalamka oo dhan ilaahay sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo iyo nimcaha inagu gaarsiiyo runtii sanad wanaagsan oo dalku barwaaqo yahay baan soo marnay sanadkan rajo badan iyo barwaaqo iyo nimco badan baan ilaahay ka filaynaa
haddii ilahay yiraahdo intaan dee kaga baxaya waa intaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayh wasalam. madaxda iyo shaqaalaha iyo la taliyayaasha wasaaradda dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. marka koobaad ilaah baa mahad leh. marka xiga si guud waxaan jeclahay inaan halkan ugu mahadnaqo shaqaalaweynaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka, gaar ahaan hay-adda horumarinta wadooyinka Somaliland. waxaynu isugu nimid kulan 3 shaqaatay oo aynu kula faguraynay caqabadaha iyo fursadaha in hor yaalla sanadkan 2020 noloshu sideedana waa qorshayn. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaynu qof kastaaba qorshaha laynoo soo jeediyey wax ku darkiisa iyo wax kalimistiisa iyo qurxintiisaba contributionkaad ku lahaydeen amba taladaad ku lahaydeen. runtii dee Somaliland waxaa la wadaagi doonaa waxyaabaha aynu halkan isla qaadanay markaan inagu shaki la'aan isqanaynay. waxaynu ka xusi doonaa, waxaan rajaynaynaa qorshaha sanadkan 2020 amba howlqabadka wuxuu ka ballaarnaan doonaa mashruucaad ballaaran, mashaariic ballaaran baynu sanadkan ilaahay ka rajaynaynaa inuu inoo hirgalo. kow waxaa ka mid a waxaanu isla qaadanay 63 kilomitr inaynu dhisno sanadka 2020 mashruuca wadada Ceergaabo. insha allahu saynu isla qaadanay ummaduna way inala xisaabtamaysaa, inaguna waan isla xisaabtami doonaa. 63 kilomitr waxaan ku talagalnay inuu budgetkana raacino. waan ku amaanayaa maamulka injineerada mashruuca wadada Ceergaabo sida faahfaahsan macaale balaanka iyo materialka la isticmaali doono iyo equipmentka iyo kharashka loo baahanay siday inuu la wadaageen. sanadka 2020 insha Allah waxaan rajeynayaa inuu noqdo sanadka ugu horumarka fiicnaan Somaliland xagga infrastructure-ka marka la eego ilaa 1990. waxaan rajo qabnaa sanadka inaan wax weyn ka qabanno mashruuci balaarnaa ee Berbera corridor oo inoo socda imika labadiisa waji ee inta u dhaxaysa Hargeysa iyo Berbera. waxaan ku leenahay talo iyo kormeer. waxaa kale rajaynaynaa sanadka 2020 sida ku qornaa qorshaheena Hargeysa bypass oo 22 kilomitr oo laga dhisi doono Hargeysa, kuwaasoo wax badan ka tari doona traffic jamkii magaalada haystay oo gaadiidka Hargeysa dhaafaya. waxay mari doonaan insha Allah Hargeysa bypass. waxa kale oo ay ku taxan yihiin qorshaheena qaranka ee labaad NDP2 oo 50% in la dhimo traffic jamka magaalooyinka ayuu qorshahaas wax ka tari doonaa. insha Allah waxaan rajayn doonaa mashruuci kale weynaa bangiga horumarinta Afrika loo yacado fardaha Boorama, isaguna inuu daraasadiisuna inoo bilaami doonto dhismihiisana bisha 9aad baynu rajaynaynaa insha Allah inuu bilaami doono wasala sanadkan 2020. waxyaabaha kale oo rajaynayna waxa ka mid ah mashruuca Burco Berbera oo ay ka mid yihiin 5 bridge inuu inoo bilaamo 5 bridge ee ugu waaweyn inuu inoo bilaami doono sanadkan 2020. waxaan laga maalgelin doonaa sanduuqa horumarinta ee Somaliland ee SDF. waxaa kaloo aynu ku rajo weynahay hay-adda waaxda dayactirku in iyaduna sanadkan insha Allah way shaqo ka qaban doonto Burco ilaa iyo Laascaanood oo insha Allah wadadaas oo dayactir badan helin inay hay-addu dhaqaalaha hayso ay wax kaga qaban doonto. waxaan naga marnayn inaynu qorshe ugu talagalnay
mashaariicda wadooyinka ee community-ga Soomaaliland ay wadaan waa mas'uuliyadeena laakiin waxaynu u mahadnaqaynaa madaxweynaha dadka weynaha Soomaaliland ama shacabka Soomaaliland oo runtii shaqada inay la qabto way ku amaanan yihiin taasi inaga reebi mayso inaynan waxtar u geysanin koola qorsheyn u sameeynay budgetna waynu ugu talagalnay in hawsha wax kaga qaban doono waxaan rajaynaynaa insha Allah haddii Allah ka dhigo dhammaan hawlaha aynu isla buhabahaynay ee isla meel dhignay miisaaniyadooda waxaan haynana waynu haynaa waxaynaan haynina waanu samayn doonaa miiniskii ama platformkii ay ku raadsan lahayn hadday noqoto deeq caalamiya iyo hadday noqoto dawladda Soomaaliland dhexdeedaba wixii aan isleenahay waxba idinka taraysa waxaan jecelahay in iyada lafteeda wax laga qabto wadada Hargeyga oo madaxweynuhu ballan qaaday in la dhiso runtii waxaan isleeyahay waa qorsheena wuxuu u baahan yahay qiimeyn iyo dabagal sanadkan waxaynu inoo ah hal ku dhig waan sanadkeenu qiimeynta iyo dabagalka inoogu adkaa aanu sameeynay hadday noqoto resource-kan haysano sida loo maamulayo waxaan rajaynayaa insha Allah ilaahay inuu dhammaan inoo suurto geliyo dardaarankeeguna wuxuu yahay xil iyo mas'uuliyad baynu halkan ka qaadnay qorsheenu dhiganay inaynu sida ay tahay uga soo baxno qofkii ka gaabiyana waynu isla xisaabtamaynaa marka waxaan idinku dardaarayaa kalsooni badan baan isku qabaa laakiin ummad meel iskugu timid isku dabcina maaha isku kartina maaha isku dadaal maaha waxaynu insha Allah isla sanadkan soo saari doonaa sida qorsheenu ahaa 5 qof ee ugu wanaagsan iyo 5 qof ee ugu fiican baynu insha Allah xuli doonaa si loo dhiirigeliyo qofka shaqada fiican leh ee ummadiisa iyo dalkiisa wax ku soo taraya waxaan aaminsanahay duruuf kasta baan ku noolaanay hay'addu in haysato shaqaale fiican aqoon leh way aragnimo leh rag badan oo waxa jira wasaaradda ku soo biiray mushaharka ka qaadanaya marka laga tago waxa ay hayaan maanta waxay kala kulmaan aqoon xaqiiqo weeyaan dhammaan injineeradu iyagoo fresh inuu yimaadaan iyagoo shaqo tagi karana way naga tagaan marka waxa kaloo insha Allah way qorsheena kamid ah tababar iyo in la kobciyo aqoonta iyo ayaan isla qaadan iyo aqoonta shaqaalaha in tababar capacity building loo sameeyo runtii qodobadaas oo dhan waxay noqon doonaan qaarayno sanadkan 2020 ku wada shaqeyno waad ku maasantihiin waqtiga adag ee 8 ilaa 4 galabnimo aynu muddo 3 cisho halkan ku wada joognay waxaana inoo noqon doontaa sanad kastaba insha Allah inaan mar isku nimaadno oo inuu wax isweydiino wixii noo qabsoomay waxaana inoo qabsoomin sababaha inoogu qabsoomi waayeen isla markaana qorsheyno sanadka soo socda haddaynu qorshe leenahay iimaynu hiigsi gool baynu leenahay goolkan insha Allah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaynu gaarno kalsooni badanna waan ku qabnaa shaqaale ahaan inaynu gaari doono aad iyo aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. shirkuna inoo xidhay